بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelkeena Best Somali Cuisine. Maanteeto waxaan aan sameynayaa sponge cake oo milk aan ka sameynayo. Marka ugu horeyso waxaan qandacsanayaa hal jab oo butter iyo 240 milligram oo caano ah. Intaas ayaan waxaan rabaa inaan isku soo qandiciyo. Butterkaasna waxaan rabaa inay milmato. Hadda muhiimada caanaha iyo butterkan kareemi waan gaaray. Waan isku soo qandiciyay. Marka waxaan rabaa intaa mareyso inaan dabka ka dejiyo. Marka halkaan waxaan ku haystaa oo iigu jiro baaquliga 5 xabo oo ukun ah aan soo jabsaday. Halkaas waxaa iigu jiro waa cusbo yar qaandada yariista afkeeda hore ah. Halkaas waxaa iigu jira vanilla oo 1 qaando ah. Halkaas waxaa iigu jira iyadana waa sokortii baroonka ahayd oo koob haafkeeda. Intan waxaa iigu jira iyadana baking powder oo qaando yar oo geeda ah. Iyo ugu dambeyntii burkii aan ku isticmaali doono. Cusbo yariis aan soo qaato qaandada yariista afkeeda hore ah. Waa ku walaaqayaa markaan. Kushiin uma baahno. Saas iskugu walaaqayna. Marka waxaan u baahannahay xunbadaas si tartiib inay degto lama rabo. Waa ku rogay bes. Markay halkaan mareyso waxaan ku xijinaynaa halkii qaando oo baking powder-ka ahaa. Iyadana tartiib baa saas ugu fogeynaa. Saas marka ugu rogno iyadana waxaan soo qaadanaynaa oo markii aan noo sii qaboobayay caanihii iyo butterkii. Iyadana waxaan sameynaynaa wax yar hal mar gab kuma siinayno. Maadaama maaragtay xunbo fiican noo yahay ma rabno inuu maaragtay xunbada u dego. Tartiibtaas aan ugu walaaqaynaa oo ku rogaysaa bes. Haddana intii hartay kale haddana soo qaadanaynaa. Tartiib haddana xoogaa kale aan ku shubanay. Haddana waa ku qasay. Tartiibtaas aan ku wadaynaa. Hadda wax ka baaquligii waa ii soo buuxsamay maasha Allah. Aad meel fiican u maraya. Okay, hadda wixii oo dhan waan isku soo qasanay.
hadda marka burkiyaa noo haray oo ayadana rabnaa tartiib inaan ugu shubo. hal mar gab kuma siinaysid, tartiibtaasaa ugu walaaqaysaa. ilaa uu maaragtay uu ka qaadanayo, tartiibtaasaa ugu wadaynaa. waayo ma rabno xulbada ukunta creamiga aan kasoo dhiganay in maaragtay walaanjid inaan walaaqa ku badino. tartiibtaas ugu rogiye burkane waa plain flour ama burka aan bixisada lahayn. waxayna ka kooban tahay 240 gram ama 1 koob iyo bar oo bur ah. marka waa kaasaa tartiibtaas aan iskugu wadaynaa. waa sasabe tartiibtaas aan iskugu celcelinay. waxaan rabnaa jilicsan inay noo soo baxdo. still burki iyo waxaan isgelinaynaa iyo ukunti. markaa still burkii salka weli noo fadhiyaa. marka tartiibtaas ilaa uu burku maaragta ku kaga milmayo saasaan ugu wadaynaa. saasay ku soconee tartiibtaas. bedan yar anoo dhiman wajida hada burkii iyo ukuntii iyo caanihii iyo batarkii iyo ukuntii waa kaa maasha allah inagu soo baxday. saas ayaa loo rabaa inaan ovenka gelino muddo 45 minutes insha allah. waa hada burkeena waa noo diyaar. the best waxaa ah in la mariyo batarka, waayo burka markaa keega dubaysid salka oo maaragtay keega aad buu jilaac u noqonaa. laakiin haddaad saliid ku wixiysid way kaa noqonee barcad bar madow. sidaa daraadeed waxaan juus garaystay inaan mariyo wax yar batar ah. batarkaasa iyada dhan si fiican marinaynaa saxniga. sidaas gaarsiinaynaa. waa kaa mana kaa qabsanayo hadhood si qurux badan oo maaragtay oo kaali iskaalo kusoo baxaya. wax yar bur ah saas ku dhaxeynaa baaquliga. sidaas quruxda badan oo jilicsan waa inay ku ahaataa burkaaga oo keega aad ka samaynaysid. waa kaa hadda sidaas diyaar noogu yahay. waxaan geynaynaa ovenka muddo 45 minutes. xaraarada kuukarkan waxaan u geyn doonaa 180.